markaan si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo si marta arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloon maaragta arrinta looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahadcelinayna in arrinta sida xikmadda leh oo u soo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa maalmahan laakiin oo hadda arrintaasi loo soo jeediyey waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi oo madaxweynaha naga qabsaday aan oggolaanay wixii oo dambe oo sida loo samaynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in shacbiga looga turo xukumo iyo arrimo aan uusan walwal iyo walbahaar gelinayo laga ilaalinayo ayaan arrintaas u oggolaanay in marka aan wada hadalno oo aan wada heshiino dhacdo hadba wixii oo suurtagal ah dalka dartiisa ku jirta yani laisku raaco wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna lasu saaro si arrimaha dalkan oo arrimihiisa loo baahan yahay hore loo siiyo alxamdulilah hadda wixii ka dambeeya dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo oggolaanay in noola wada oggolaadaan midnimad iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankana in la ilaasho ayaa ka codsanayaa in ay arrintaasi ayidaan garabka nala qabtaan oo aan heshii habboon alxamdulilah wakafa allahu lmuminiina alqitaal yani wax dagaal ah dhibaato ah ma jirto ilaah baa mahadda iskale intaasaan rabay inaan idinla wadaago in madaxweynaha uu soo jeediyey hakintaasi annagana aan ka oggolaanay rasmi ahaan waxaan markaa ugu mahadcelinayaa ayaga aragka sare oo arrintan oo maanta ka soo qaatay qayb weyn oo soo bisteeyey inkastoo markii dambe qayb weyn ka soo qaatay oo arrintan soo gaarsiiyey meel wanaagsan haddana madaxweynaha uu markaa si fiican uga oggolaaday aad iyo aad baad umahadsantihiin ballanteenu waxaa weeye inaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka waa muhiim baarlamaanka waxaa weeyaan digii dowladda weeyaan ayaa lagu dheerin marka min fadlakum xisaanaku arrintaas lagu ayida wixii ka dambeeyana faahfaahinteeda madaxweynaha ka sugayna annaka way soo gaarsiin aad baad umahadsan